xidhiidhyaha xisbiga mucaaradka wicid ee gobolada Awdal iyo Salal Cumar Daahir Cilmi ayaa maanta la hadlay qaar kamid ah golaha wasiirada madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silayo oo uu kamid yahay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland. wasiiradan iyagu imika waqti xaadirkan difaaca u galay sida ay u difaaci lahaayeen saabi qaybsiga oo iyagu malaha ka shaki qaba in haddii saabi qaybsi la helo boosaskooga ay waayaan sida wasiirka duulista iyo hawada oo ka hadlayay maalintii dhaweyto inay waxay ahayd wax hore u jiray oo ilaa weligeesa tagay war hore uma jirin madaxweyne ay ku meersan yihiin 5 wasiir oo aad ka mid tahay oo ay isku been yihiin hore uma jirin wax dhacayna maaha marka inaad waxyaabaha qaar ka xajishaan ayaa loo baahan yahay إن عدك كذا شيء لكن عالبه وسيرك الدوليسية هوذا عداتها إن الخاص يكون بكثير بس كان سايع. عمر ظاهر علمي أيا عرب ككل فتاة خلاف كده احتاجن دولته هوسي بورما أو شيء إن معمول حمد بحسنا كده حجرته يقولها ديجان كبورما أو شيء إن يجبي أهم با أي حلك أي برشة وقدرة كوا كفش المي وكان يسوق عرمها سعر ما كركاد ليا. شيء واحد عملي شغاله وكعبني بشارلان iyadoo maanta aan la oran karin boorama ma laha ila dhaqaale oo ay ka maaragtay dakhli ka soo galo maamulkii degmada boorama taasi wax noqon kara cudurdaar maaha oo ma jiraan lama oran karo meel dakhli ka soo baxo shirkadii isgaarsiinta arkaysa sida u shaqaynayaan shirkadii leerka arkaysa sida u shaqaynayaan cashuurtii kale ee dadka madaniga laga qaadiyay ayaa arkaysa in maalin walba kastamyadii ayaa shaqaynaya lacagtaas xagee martaa xagee ku dhacdaa waxa kale oo jirta maamul xumo ka dhex taagan 12 xubnood ee loo doortay maamulka degmada Boorama deegaanka Boorama kuwaas oo moodo in ay kartidaro ka muuqato oo ay gabeen xilkoodii guud ahaan anigoo kala qaadayay waxa kale oo jirta caqabad xukuumadda dhexe kaga socota oo mas'uulka iyo wasiirka arrimaha gudaha isagoo dhaqan galin xeerkii iyo qaab dhismeedkii loogu talagalay lagu maamulo dowladda hoose haddaba arrimahaas oo dhan waxaanu leenahay waa arrimo jira oo ay ka tallaabsan laadahay in deegaankan ama degmada Boorame ay horumar gaadho arrimaha ka tallaabsan laadahay weyn waxa kaloo halka ka muuqda maanta waxa ceeba in dawladii hoose leerkii baa laga jaray oo la soo weydiiyay wasiirkii arrimaha gudaha waa arrin aad iyo aad u ceeba meel ka hooseysa halkaas oo la sii eegan karaa ma jirto sidaas darteed ma jirto xukuumad dhexe oo lagu eegaa ma jirto xukuumad dawlad hoose oo lagu eegaa oo maanta كوبيلاتك دورتين بدون غير بورما وذاك يسمى geesta kale waxa uu ka jawaabay hadal maalintii shalay tahayd ka soo yeeray qaar kamid ah golaha deegaanka degmada Gabiley waxana uu sheegay xildhibaanada golaha deegaanka reer Gabiley war Gabiley ma aha meel qabiil degan yahay in lagu kala barakacay waa loo yahay amaano kugu raagtay waxa la moodaa in adigu leedahay ayaa la moodaa waxay dadkan la soo raray ma aha dad dusha laga keenayo waa dadkii deegaanka ku aanu waliba beerku ku leeyahay degmada Gabiley dadka la soo celiyay xildhibaanada ka hadlaya aad ayaan u ambaareynaya waxa leenahay arrinka dib uga noqda dadka hal la isu keeno hal la mideeyo hal la isku milmo ayaan leenahay ugu dambeyntii Cumar Daahir Cilmi ayaa soo dhaweeyay shirweynihii beelaha Gadabuursi ee ka qabsoomay dooxada Goob Toosan arrinkaas waxa uu soo yeeday dadka ku dhaqan Gabiley Awdal iyo Salal uu soo yeeday waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa qodobada horumarka iyo wadajirka iyo nabadda ku salaysnaa in la dhaqan geliyo ayaan maaragtay ku boorinaynaa golaha dhaqanka ee matala dadweynaha Axmed Deeriye Ciltire shabakada wararka ee Boorama online